marka ka hadalna animal source daawooyinka laga soo saaro xoolaha ama laga helo xayawaanka daawada laga helo xayawaanka animal source wuxuu ka mid yahay ilaha ugu badan ee laga helo daawada aqoon-yahano sayniska ah waxay xayawaano kala duwan ka soo saareen daawooyin fara badan kuwaasoo waxtar u leh nolosha aadanaha daawooyinka laga soo saaray xayawaanada ay sabab u noqdeen in lagu badbaadiyo malaayiin naf oo u dhiman lahaa cudurro fudud iyo kuwo culus oo daawadooda lagu dhibanaa alla subxaana wa tacaala ummadda wuxuu siiyey maxaa la yidhaahdaa nimcadaas oo ilaahay siiyey waxaa ka mid ah xoolaha dhirta iyo waxyaabaha kala duwan xoolihii iyo dhirtii marna waa manaaficaad oo qofka marka uu cuno naftiisa ay quudin u noqdaan marna waxay u noqdaan daawo isla ayagii ilaahay subxaana wa tacaala oo oga dhigay maxaa la yidhaahdaa daawo oga dhigay cilmiga keliya waxa weeyaan raadin iyo in baxsi lagu sameeyo waxaan waa wax ilaahay mar hore ugu talagalay ummaddiisa marka xayawaanka ama noolaha laga helo daawooyinka ayay ka mid yihiin marka waxaan dhahnay animal source waxay ka mid tahay daawooyinka laga helo xayawaanka oo loo yaqaano animal source wuxuu ka mid yahay ilaha ugu badan ee laga helo daawo aqoon-yahano sayniska waxay xayawaano kala duwan ka soo saareen daawooyin fara badan kuwaasoo waxtar u noqday ama u yeeshay nolosha aadanaha daawooyinka laga soo saaro xayawaanka waxay sabab u noqdeen in lagu badbaadiyo malaayiin naf oo u dhiman lahaa daawo kuwaasoo aqoon xumada ka jirta awgeed xal loogu helay daawada daawooyinka ugu caansan iyo meelaha laga helay markaan ka hadalno saca caanihiisa cow pancreas waa isha laga helay daawada loo yaqaano insulin kaasoo lagu daaweeyo cudurka macaanka oo loo yaqaano diabetiga ama sokorta cudurka lagu daaweeyo ama daawada lagu daaweeyo waxaa laga soo saaray cow pancreas saca ayaa laga soo saaray markaan ka hadalno kaadida naagta uurka leh bini'aadamka xayawaanka ay soo galayaan kaadida naagta uurka leh waxaa laga helaa maadada loo yaqaano human chronic gonadotropin oo loo yaqaano HCG loo yaqaano oo markii aad pregnancy-ga baaraysaan aad ku aragtaan stripka pregnancy-ga waxaa laga helaa daawada madhalaysnimada ayaa laga helaa infertility-ga ayaa laga helaa qanjirka idaha sheep thyroid waxaa loo yaqaano waxaa laga helaa maadada thyroxine oo lagu daaweeyo dhiigkarka ama hypertension dhiigkarka dadka qabo waxaa inta badan daawadooda laga soo saaraa idaha xayawaanka ayaa laga soo saaraa marka intaas waxay ka mid yihiin marka meeshaas waxaan ku ogaanay saca caanihiisa ama saca ganaciisa in laga soo saaro daawadan inta badan macaanka ama sokorta lagu daaweeyo sidoo kale naagta uurka lehna in kaadideeda marka uu leeyahay maadada human chronic gonadotropin marka ay ku jirto maadadaasna daawo u tahay madhalaysnimada marka human chronic gonadotropin waa dheecaan ka yimaada balasantaha mandheerta wuxuuna diyaarsan yahay xilliga ay hooyada uurka leedahay oo keliya ayuu diyaarsan yahay mostly waxa waaye human chronic gonadotropin in macnaha lagu daaweeyo madhalaysnimada infertility-ga qanjirka idaha sheep thyroid waxaa loo yaqaano waxaa laga helaan dhahnay maadada thyroxine oo lagu daaweeyo cow waxaan leenahay liver beerka saca waa isha laga helo vitamin A-ga iyo vitamin D-ga dhiigga xayawaanka blood animal waxaa laga diyaariyaa tallaalada preparation of vaccine markii vaccinta tallaalka ayaa laga helaa waxaa kale oo jiro daawooyin qalajyaal ah oo laga soo saaro noolaha gaar ahaan fangaaga iyo bakteeriyada waxaa loo yaqaano waxaa laga helaa ayagana qalajyaal waxaana lagula dagaalamaa ama lagu daaweeyaa cudurka ay sababaan fangaaga iyo bakteeriyada caloosha xoolaha stomach tissue-ga waxaa loo yaqaano waxaa laga helaa caloosha xoolaha stomach tissue waxaa laga helaa waxaa loo yaqaano
babsiin antirabsiin taasoo loo isticmaalo daawooyinka boog calooleedka ama babtig alsarka waxa loo yaqaano inta badan waxaa laga sameeyaa waxaa loo yaqaano stomach tissue-ga ayaa laga sameeyaa marka waxaan dhahnay dhowr jeer waxaan soo qaadanay animal source-ga waxyaabaha laga soo saaro waan sheegnay waxaan dhahnay liverka beerka waxaan dhahnay ganaca oo cow oo maxaa la yiraahdaa saca waxaa laga soo saaraa dhahnay insulin daawadaas oo lagula dagaalamo diabetiga sokorta ayaan sheegnay thyroid maxaa la yiraahdaa sheep thyroid idaha qanjirkooda waxaan sheegnay inay u fiican yihiin ama laga soo saaro daawada dhiig karka beerka saca cow liver waxa loo yaqaano waa isha laga helo vitamin A iyo vitamin D ga ayaan ku sheegnay fungi iyo bacteriyada oo ayaga noolo ilma aragtaa waxaa dib looga diyaariyaa waxaa loo yaqaano maxaa la yiraahdaa qalajiyaasha ama daawooyin qalajiyaal ka mid ah ayaa laga helaa caloosha xoolaha stomach tissue-ga waxaa loo yaqaano waxaa laga helaa waxaa loo yaqaano babsiin antirabsiin taasoo loo isticmaalo waxaan dhahnay marka babsiinta iyo tirabsiinta waxay u fiican yihiin aan dhahnay boog calooleedka oo loo yaqaano babtig alsarka marka daawooyinkan dhammaan